magacayga waa Axmed Maxamed Ibraahim waxaan ahay odayaasha reemo guddaa oday ka mid ah waxaan ahay markaan si kale isu kiinbaro raggi dhisahayay Maxamed Mukhtaar Shiidiye ee hore miidiyaha u galay miidiyaha uga hadlay tiirasha uu ku dhisnaa tiirka ugu muhiimsanaa baana waxaan caddaynayaa maanta inaan ka tanaasulay fikirka isaga ahaa aanan qaatay fikradda ay ku midoobeen labada beelood ee walaalaha ah ay ku midoobeen isu hambaynta ah kugu sameeyay haanta suba ku dhashaa baa la yidhi haanta marka la luuxayo haruurka iyo haanta in caanaha isku celiyaan bay subag uu ku dhalan karaa in maanta cawliyahan uu dhaho mataqaanaa Cabdallah aan ku celinno kursiga samawada aan ku celinno Allah iskaasna aan samayno ugaaskeennana ay arrintaa ka timid waa arrin aad u wanaagsan sababta aniga ibadashay waxay tahay cidnana igama shaqayn inaan isbedelo waxaa iga shaqaysay maskaxdaydan dib u shilay waxaan ku fakaray waxaa jirta laba xayawaan oo loo soo qaato midnimada iyo maxaa ku dhahay mukhalifada haadka la yiraahdo dagiiranka waxaa la yiri boqol baa laga dilin bisana maxaa laga dilaa boqorka wuxuu diiday in boqorka laga dilo wuxuu ogolaaday in boqol laga dilo boqorka in laga dilo wuu diiday boqolka way dhalanaysaa baalka la yiraahdo fiinka ama dhabadka ama maxaa ku rahdaa galowga hadda si loo yaqaano wuxuu ogolaaday in laga dilo boqorka wuxuu kali u taagan yahay everywhere uu taagan yahay islaamana socdo sababta ay soo celisay waxay tahay boqorka iyo kursi boqorka ila weynaaday qowmkiisa jabiyana da inuu dhumahayaa soo baxday sida fiil inaan noqonin baan go'aansaday kursigana walaalada in lagu celiyay inay mudan tahay oo si fiican u fakaray baan maxaa ku raadahay ictiqaaday sababtaas horta ay soo celisay waxaan walaalkay leeyahay marka soo dhawow horay baa lagu qaaday codka reer cali iyo kay cawliyahan buu wad haysataa annagii ninkaa kale soo qaadnayna maanta waa ku soo laabano waa ku wadnaa kursigina waxaa weeye waad ku fadhiisanaysaa insha allah biidni illaah Abdul Yusuf Haji Abdul Maxamed Yusuf Haji maanta ma aan qaadin annaga tariiqamo gudaanahay waqti hore aan qaadnay yaan qaadnay waa si wilaanahay runtii waxaa jira anaga geel baan dhaqanaa geel anaga waxaa ku jira qurba Abdul oo loogu talagalay in loo qalo yaa ku jiraan geel anaga oo runtii kulley geelaya intaasoo qurbaxa ku jirta oo nimanka ijaarka ay dhaqaalinayaan qurba Abdul oo waantaale waa kan ay dhahayaan waxaan ii sheegi Abdul waxaan rabnaa insha allahu inuu soo galo gafana uu soo galo 10 years uu soo galo 10 years abi wuxuu qabtay waad garanaysiin ninka reer Kenya Maxamed Yusuf Haji wuxuu qabtay Garissa County ogaadeen waad garanaysiin ilaa Jubaland waxaan ku soo dheeleelaanin waxaa waaye dagaal ugu dambeeya insha Allah waxaan u sheegaynaa cawliyaanka district dad ka taagan yaa baaq u dirayaa Reer Cali waa soo dhameynay guriga ku soo dhameynay guriga hadda dadka isu soo nimooyi ballankaana waa kii hore dadka cawliyaanka annaga kuura laga rabo dadka cawliyaanka dadka Reer Cali ee joogaamo gudaa dadka aad u kuura badan ku jira dhowr iyo 10 kun baa ka dhix maanta kuuraha Reer Cali ninka anagana dareen hayo oo ama imbiiraba ama amseeraba oo anagana dareen hayo oo cawliyahan leh waxaan ku qaadaynaa oo ku dhisaynaa Abdul hadduu qaado
هذا الكاسة اسكمله هذا الكاسة وهذا الضبه عبد الحاج نكي نبات بسه ونوضه اسمره مرة من عني رهيب البناء رهيب البادسة مرة نكي اسكر عبد الحاج إنه الهجي بالعام وحن بعته نكي اسكر كانوا بعني أنا كورة سيننا